gudoomiyaha midowga caalamiga ee jimciyadda bisha cas iyo laanqeyrta cas ayaa xaqiijiyay suurtagalnimada inay soo baxdo dhibaato bulsho oo la xiriirta dadka danyarta iyo kuwa bulshadu ay takoortay oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalalka reer galbeedka waxaana bannaanka u soo baxay heerka foosha xun ee ay dad aad u badani baahidu ka gaartay gaar ahaanna gaajada iyo dayaca ay qabaan dadka derbijiifka iyo guud ahaan danyartu waxaa shaashadaha telefishinada laga daawaday magaalooyin aad u qurux badnaa oo muuqaalkoodu hodannimo iyo ladnaan berigii hore u taagnaan jireen balse markii ugu horraysay la arkayo dad samafalayaala oo derbijiif iyo sabool tiro badan cunto ugu qaybinaya jidadka dhinacyadooda halkani waa caasimadda biljam ahna xarunta midowda yurub dad sabool iyo derbijiif isugu jira ayaa cunnooyin loogu qaybinayaa derbiyada dhinacyadooda iyo waddooyinka sidoo kale magaalooyin badan oo ka mida dalka faransiiska ayaa isla xaaladdani ay ka jirtaa magaalooyinkii dunida ugu waaweynaa uguna mashquulka badnaa sidan ayuu xaalkoodu noqday meelo cidla oo laga guuray ayay u muuqdaan qofna waddooyinka mari maayo marnaba dunidu ma suuraysanayn magaalooyinkan aad aragtaan mar inay sidan noqonayaan cidla ciirsila oo qofna uu bannaanka u soo bixi waayo wadammadii awoodda lahaana ay xaalka coronavirus wax ka qaban waayaan awoodda eebba ayaa iska leh There is no money people in the streets who can give you something to eat or something. Waa xaalad adag halkan ma joogaan dad ku caawiya oo ku siiyo cunto aad cunto ama lacag guddoonka hay'adaha laanqeyrta cas iyo bisha cas ayaa sheegaya in dhibaatooyinka bulsho ee soo baxaya ay kordhinayaan khatarta iman karta ee ah in corona awgii ay isdilaan dadka jilicsan iyo kuwa la faquuqo ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dunida mas-uuliyiinta laanqeyrta cas oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegayeen inay jiraan dad badan oo ay bulshooyinku aad u faquuqeen iyagoo arrimahaas ka hadlaya waxay leeyihiin waxaan ka cabsi qabnaa in toddobaadyo gudahood ay dhibaatooyin bulsho dhacaan xaaladaha danyarta ee magaalooyinka waaweyn ee yurubna dhibaatooyin waaweyn ay soo gaaraan hay-adaha laanqeyrta cas iyo bisha cas ee caalamiga ayaa magaalooyinka waaweyn ee maraykanka iyo yurub ka bilaabay ololayaal ay dad iskood isku xilqaamay cunto ugu qaybinayaan dadka derbijiifka ah jidadka dhinacyadooda ku dacdaraysan iyo dadka saboolka ah hay-ado badan ayaa ka digaya in gaajo badan iyo xaalado caafimaad darro ay soo wajihi doonto derbijiifka iyo saboolka yurub iyo maraykanka oo dadkii ay ku hoos noolaayeen uu xanuunka korona guryaha ku xereeyey waxaa soo baxaya warbixinno iftiiminaya in xanuunka coronavirus uu kordhin doono saboolka guud ahaan caalamka maadaama oo ay dakhli waayi doonaan dadkii nolol maalmeedkooda ku xirnaayeen waxa ay maalin kasta shaqaystaan shaqadii maalinlaha ahaydna ay gebi ahaanba istaagtay dhinaca kalena waxaa maalmihii ugu dambeeyey si aada u kordhiyey heerka tuugada iyo boobka meheradaha ka dhacaya magaalooyinka waaweyn ee dalalka reer galbeedka arrintaas oo lala xidhiirinayo korarka baahida oo ay dad badan ku dhiirigelisay inay xatooyo sameeyaan